Alex wuxuu u shaqeeyaa shirkad ka shaqeysa ciribtirka cayayaanka. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa qaniinay Caaro Brown Raclus ah isagoo jooga guriga maamiilkiisa Miss Jefferson. Alex isla markiiba wuxuu u cararaa isbitaalka isagoo ka walaacsan in nabarku caabuq qaado. Laakiin daqiiqadii uu indhaha saaray kalkaalisada Lisa wuxuu gebi ahaanba iloobay xanuunkii. Wuxuu bilaabay inuu adeegsado dhammaan xeeladihii uu yaqaanay si uu ula shukansado. Lisa sama aqbalin. Waxay baaday nabarka waxayna u sheegtay inuusan wax halis ah ahayn oo kaliya uu u baahan yahay irbad degdeg ah dabadeedna wuu bixi karaa. Alex wuxuu isku dayay inuu fursadaas uga faa'iideysto isagoo Lisa ku casumaya casho. Iyaduna isla markiiba way diiday iyada oo aan laba labayn. Alex wuxuu ku fadhiistay qolka baaritaanka isagoo si weyn u xishoonaya. Dhanka kale qolka meydadka lagu hayo wax ayaa ka soo baxay bacmeyd lagu riday. Carl oo ah shaqaalaha meydadka ayaa shaqada ku jiray wuxuuna dareemay inay wax khaldan jiraan. Wuxuu isu geesiyay inuu bacda furo isla markaasna nalkii ayaa bilaabay inay biligleeyaan. Carl wuxuu u soo dhawaaday si uu si fiican u eego. Caaro aad u weyn ayaa dabarkiisa kor ugu soo kortay waxayna miciyadeedii ku muday qoortiisa. Carl isagoo argagaxsan ayuu dibadda u orday wuxuuna qof walba u sheegay in wax ka soo baxay bacmeyd lagu riday oo ay qaniintay. Wuxuu shiday digniinta si dadka ay arrinta u qaataan si dhab ah laakiin kormeerihiisii wuu iska fududeeyey. Waxay yiraahdeen malaha waa qaniinyo cayayaan yar. Cidna ma rumaysan Carl isaguse wuu ogaa wixii uu dareemay. Waxay ahayd wax weyn. Waxay lahayd lugu badan waxayna u socotay sida Caaro. Arrintani waxay u baahan tahay khabiir ciribtira cayayaanka. Alex ayaa maqlay waxaas oo dhan markaas ayuu si degdeg ah u feejignaaday. Wuxuu u arkay tani inay tahay fursad uu ku soo jiidan karo kalkaalisada Lisa. Wuxuu sheegay in waxa weeraray Carl ay u muuqato Caaro weyn oo wolf speeder ah isla markaana uu isagu xalin karo. Waqtigaas nabarkii Carl hore ayuu u bilaabay inuu qudmo. Kalkaalisada Lisa ayaa si degdeg ah ugu qaaday qolka gargaarka degdeg ah. Alex hal mar ayuu eegay nabarka oo cabirkiisu leegyahay feeditaankiisuna wuu dhacay. Dabadeedna wuxuu la raacay waardiyaha amniga ee Jose qolka meydadka. Wuxuu furay siibkii bacda meydka markaas ayuu istaagay isagoo naxay. Meydkii wuxuu ku duuduubnaa shabaq Caaro. Dhammaan xubnihii gudaha ee jirka way madnaayeen. Alex calooshiisa ayaa isku rogtay. Marka laga eego sharaxaadii Carl, Caaradani waxay qiyaastii leeg tahay daanyeer. Si taxadar ahaan Alex wuxuu soo saaray sunta cayayaanka ee uu isagu sameeyey wuxuuna bilaabay inuu raadiyo makhluuqaas. Markaas ayuu arkay marinka hawo-mareenka ayaa laga jebiyey gudaha. Marinkaas wuxuu dhex maraa dhismaha oo dhan. Haddii Caaradu aysan halkan joogin waxay khasab ku ahayd inay gashay marinada hawada. Meesha ugu badan ee ay u socotana waa qolka serverada ee diiran oo had iyo jeer guuhaya. Alex wuxuu Jose ku yidhi inuu gudaha u galo oo soo eego laakiin Jose wuxuu aad uga baqaa cayayaanka. Si cad ayuu u diiday. Alex door kale ma haysan. Isaga ayaa gudaha galay. Wuxuu aaminsanaa inaanu jirin cayayaan dunida ku nool oo ka adkaan kara. Intaas waxaa dheer Caaradani dadka ayay weerartaa. Qof baa khasab ku ah inuu la tacaalo. Ka hor intuusan gelin wuxuu Jose siiyey qalab iskaadsiin. Waxay u adeegsan doonaan inay xidhiidh ku sii lahaadaan. Isla markaas cutub si buuxda u hubaysan ayaa yimid isbitaalka. Waa ciidamada Mareykanka. Isla markii ay gudaha soo galeen waxay xireen isbitaalka oo dhan waxayna ku dhawaaqeen in qof kasta oo jooga laga yaabo inuu la kulmay caabuq halis ah. Waxaa jira meyd si khalad ah loogu soo diray isbitaalkan. Meyd sida fayraska. Major Brachton Tanner iyo kooxdiisu waxay u yimaadeen inay dib u qaataan. Sida muuqata hore ayayba ugu warhayeen Caarada weyn. Dhanka kale Caaradii weyneyd waxay ka soo baxday marinada hawada waxayna ku dhacday qolka bukaan. Waxay si toos ah ugu kortay wejiga bukaanka waxayna isla goobta ku dishay. Warku si degdeg ah ayuu ku gaaday kooxda Major Tanner. Isla markiiba way dhaqaaqeen si ay xaaladda u qiimeeyaan. Dilacas oo ka tirsan kooxda ayaa go'aamiyey in Caaradu weli si xawli ah u sii korayso. 4 saacadoodba mar cabirkeedu 4 laab ayuu noqdaa. Marka ay gaadho cabir ku filan dadka ay qabato kaliya lama qaniini doono. Waxay noqon doontaa wax aad uga xun. Dhanka kale Alex weli wuxuu ku gurguuranayaa marinada hawada. Wuxuu gaaday meel marinku laba u kala baxayo. Markaas ayuu raadiyaha uga codsaday Jose inuu tilmaamo jihada. Jose wuxuu u sheegay inuu bidix u leexdo. Isagoo u hadlaya si degan oo aan wax walwal ah ka muuqan. Alex wuxuu dareemay qabow dhabarka ka socda. Dabadeed waxaa dhacay jug aad weyn. Alex wuxuu qiyaasay in Caaradu iyaduna ku jirto marinada hawada. Wuxuu hore ugu socday si tartiib ah oo taxadar leh. Runtii shabaq Caaro oo aad u weyn ayaa jidka ka xanibay. Wuxuu gacanta u fidiyey si uu u taabto. Heese darteed taasi waxay ahayd qalad weyn. Shabaqu wuxuu ahaa mid aad u degdeg badan. Wax kasta oo uu sameeyey kama uu goyn karin. Ugu dambeyn wuxuu soo saaray dabqabadkiisii wuxuuna gubay shabaqii si uu isaga xoreeyo. Alex wuu sii socday wuxuuna dhulka ka helay dareere qalalay oo u muuqday inuu Caaradu ka tagtay. Wuxuu noqday mid aad u feejigan. Meesha hore oo dhan waxaa yaalay shabaqyo Caaro. Caaradu way dhowdahay aad bayna u dhowdahay. Wuxuu Jose ugu sheegay raadiyaha wixii cusub laakiin ciidamada Mareykanku waxay ku jireen isla hirka isgaadhsiinta. Hadda waxay si sax ah u ogaadeen halka uu joogo. Alex wuxuu ku arkay Caaradii weyneyd qaybta hoose ee dhismaha. Wuxuu qadaadiye ku tuuray Caarada si uu u tijaabiyo falcelinteeda. Caaradii waxay qadaadiyadii si toos ah ugu muday hal ciddi. Alex wuu istaagay isagoo aan dhaqaaqin. Xoogga intaas leeg haddii halkii qadaadiye ay ka ahaan lahayd madaxa qof isla markiiba wuu dhiman lahaa. Caaradii waxay ku luntay hadiyada iyadoo sugaysa inay si lama filaan ah u weerarto. Nasiib wanaag Alex Lieutenant Charlie Brandt ayaa timid waqtigii saxda ahaa. Waxayna rasaas ku furtay Caaradii taasoo ku khasabtay inay dib u gurato. Caaradii way jeesatay waxayna ku dhex baxsatay marinka bulaacadaha. Charlie waxay raadiyaha kula xidhiidhay Major Tanner iyadoo siisay warbixinta xaaladda waxayna Alex ku eedeysay inuu shaqada carqaladaynayo. Meel kale nin guri laan ah ayaa ku jiray bulaacadaha markii uu arkay qadaadiye ku duuduuban xariir Caaro. Wuxuu gacanta u fidiyey si uu u qaato laakiin Caaradii weyneyd ayaa si lama filaan ah uga soo muuqatay. Waxay sun si toos ah ugu tuftay wejigiisa taasoo isla markiiba dalaalisay. Ninkii xanuun daran ayuu la qayliyey wuxuuna ku dhintay isla goobta. Dib ugu noqoshada isbitaalka Alex waxaa loo geeyey inuu la kulmo Major Tanner. Wuxuu qiyaasay in Caaradu miisaankeedu yahay ugu yaraan 2 rodol. Dilacas wuxuu intaas ku daray in Caaradu weli ku jirto marxaladeedii labaad ee koritaanka isla markaana ay khasab tahay in la qabto ka hor inta aysan gelin marxaladda saddexaad. wax yar kadib Alex waa la fasaxay. Jose ayaa dhinac ula baxay wuxuuna u sheegay inuusan bixin. Wuxuu ku yidhi haddii ay qabtaan Caaro intaas leeg waxay noqon doonaan dad aan ah. Lacag gabdho wax walba way heli doonaan. Alex wuxuu ogolaaday hadalkii Jose. Waxay go'aansadeen inay iyagu Caarada dabagalaan ayna ka hormaraan ciidamada Mareykanka. Laakiin durba way daaheen. Caaradii waxay gashay marxaladeedii saddexaad ee koritaanka. Qof ayaa duubay muuqaalkeeda. Waxay gaadhay ugu yaraan 6 feet oo dherer ah. Dad badan oo indhahooda ku arkay ayaa xaqiijiyey. Warbaahintuna
aaraduna waxay bilowday inay faafiso sheekada. kooxda Major Tanner waqtigu wuu kasii dhamaanayaa. xitaa waxay hawada u direen diyaarado wax baada si ay u raadiyaan aarada. wicitaan ayaa uga yimid booliska labt. waxay hadda heleen meel lagu arkay aarada. danka kale cutubyo ciidan ayaa baaray bulaacadaha waxayna heleen meydad biniaadam oo lagu duuduubay xariir aaro, laakiin aaradii mar hore ayay meesha ka baxsatay. Alex iyo Jose waxay baabuur ku jiraan iyagoo raadinaya aarada. Alex wuxuu qiyaasayaa inay ku dhowdahay webiga Los Angeles, markaas ayay xawaare sare ku aadeen. markii ay halkaas gaadheen boolisku mar hore ayay joogeen. waxay u muuqataa inay iyaguna isla fikradaas qabaan, laakiin marka laga eego wejiyada askarta aaradu meesha ma joogto. Jose wuxuu soo jeediyey fikrad kale. wuxuu sheegay in aaradu laga yaabo inay ku dhumanayso meel geedo cufan oo daboolan leh sida Kane. meel u dhow waxaa ku yaal jardiin leh geedo waaweyn, caleemo dhaadheer iyo dad badan oo dalxiis ku jooga. aaradu si fudud ayay halkaas u geli kartaa. Alex labalabayn ma gelin. wuxuu baabuurkii u jeediyey jardiinka. runtii aaradii halkaas ayay joogtay. waxay mar hore weerartay nin waayeel ah oo jidka marayay. diyaarad aan duuliye lahayn oo militari ayaa dhacdada oo dhan duubtay. Major Tanner isla markiiba wuxuu cutubyo u diray jardiinka. markaas xaaladdu si buuxda ayay uga baxday gacanta. aaradii waxay bilowday inay qof kasta weerarto. hadda waxay dhowr jeer ka weyn tahay qof weyn oo si buuxda u koray. dadku wax fursad ah ma haystaan. daqiiqada gudahood 10 qof ayaa dhintay. dadkii waxay u kala carareen jeel kasta. meydad ayaa ku kala daadsanaa jardiinka oo dhan. Alex wuxuu baabuurkiisa ku xawaareeyey isagoo rajaynaya inuu aarada jiidsiiyo oo dilo, laakiin aaradu way ka weynayd baabuurkiisa. wuxuu baabuurkii dib u celiyey isagoo xawaare sare ku wada. aaradii way daba gashay. Jose wuxuu madaxa kala baxay daaqada wuxuuna rasaas ku furay. rasaastu wax saameyn ah kuma yeelan. wax yar kadib diyaarad militari oo aan duuliye lahayn ayaa aragtay. Charlie ayaa isla markiiba Alex wacday. waxay ku sii socdaan goob rasaas istaafsi ah. ciidamadu waxay hub culus ku diyaariyeen dhammaan agagaarka si ay aarada u dilaan. intii ay taleefanka ku jireen, Alex wuxuu si toos ah u galay goobtii lagu dili lahaa. askartu waxay dhinac kasta uga taageen hubkooda. Alex iyo Jose waxay ka boodeen baabuurka weyna ordeen, laakiin xitaa awooddaas rasaasta badan kuma filnayn. aaradii waxay qabsatay baabuurkii Alex waxayna uga dhigtay gaashaan, dabadeedna waxay isku tuurtay keynta u dhow oo weyluntay. Charlie waxay isu keentay askartii hadday waxayna u dhaqaaqday inay hawsha dhammaystiraan. waxay si foolka fool ah ula kulmeen aaradii. askartii mid mid ayay u dhaayeen. cidna xitaa fursad uma helin inay soo saarto walxihii dabka dhali lahaa. kuwii badbaadayna waxay ku dhigeen shabaqii aarada. Charlie waxay go'aansatay inay aarada la dhimato. waxay diyaar u ahayd inay wax walba qarxiso. markaas ayuu Alex yimid oo halkaas ka jiiday. aaradii si degdeg ah ayay ugu soo dhawaatay. Charlie waxay ku sigatay inay qarxiso walxaha, laakiin Jose ayaa si xawaare leh u yimid isagoo rasaas ku furaya aarada, taasoo dib u celisay. saddexdoodii way ordeen, laakiin Charlie ayaa ku dhigtay shabaqii, waxaana lagu duubay qumbul shabaq aaro ah. gulmad dheeraad ah ayaa yimid waqtigii saxda ahaa, waxayna rasaas ku celiyeen aaradii mugdiga. markii dambe Alex wuxuu sheegay inay dib ugu noqdaan Charlie. Major Tanner wuu diiday. wuxuu yidhi qorshaha looma bedelo hal qof. wuxuuna sheegay in rasaastii cuslayd ee ay hadda isticmaaleen darteed Charlie ay u badan tahay inay dhimatay. kadib Tanner wuxuu sheegay xaqiiqda. aaradu waxay ku dhowdahay inay gasho marxaladeedii shanaad ee koritaanka. waa nooc hidde ahaan la bedelay kana dhashay tiknoolajiyada dhif ah oo badan. si sax ah marka loo sheego, waxay la xidhiidhaan nolol ka baxsan meeraha dhulka. ciidamada Maraykanku waxay idna ka soo saareen raadad jeermis oo laga helay ciidda meeraha Mars, waxayna u adeegsadeen tijaabooyin isku dhaf ah. ujeedadii asalka ahayd waxay ahayd mid fudud. Dilnocas iyo kooxdiisa waxay doonayeen oo keliya inay soo saaraan dalagyo ka wanaagsan. halkii si kama ah ayay u abuureen caaro weyn. hadda waxay ku dhowdahay marxaladda shanaad taranka. marka taasi dhacdo, caarooyin waaweyn ayaa kasoo muuqan doona dunida oo dhan. Major Tanner wuxuu qirtay in Alex iyo Jose ay aad ula dhaceen. iyagoo aan haysan qalab xirfadeed, haddana waxay la jaanqaadeen ciidamada tallaabo kasta. wuxuu doonayaa inuu kooxdiisa ku daro. Alex wuxuu qiyaasay in caaradu raadin doonto meel ay ukunteeda dhigto. isla markaas war degdeg ah ayaa soo baxay. caaradii weynayd waxay fuushay munaarada usbank. dhismayaashii ku hareeraysnaa waxay ku burburayeen cagaha hoostooda. Major Tanner wuxuu amray in weerar duqayn ah la qaado si loo joojiyo burburka inuu sii fido. markaas shaashad ayaa shidantay. waa Charlie, way nooshahay, waxaana ku hareeraysan ukumo aaro. Tanner labalabayn ma gelin. wuxuu Alex iyo Jose u diray inay soo badbaadiyaan. intii ay jidka ku jireen, ukumihii waxay bilaabeen inay dilaacaan. boqolaal caarooyin yaryar ah ayaa bilaabay inay kasoo baxaan. dhanka kale, Alex iyo Jose waxay dejiyeen qorshe. hubku si cad uma dili karo caaradan. dabkuna ma shaqaynayo, ma gubanayso. markaas Jose wuxuu tilmaamay arrin. xariirta caaradu waa guban kartaa. waxay u isticmaali karaan shabaqa dabin ahaan, waxaana laga yaabaa inay caarada ku gubaan iyadoo nool. taasi waxay fikrad ku dhalisay Alex. waxay dab qabadsiin karaan spinneradkeeda qaybta dambe ee ay xariirtu kasoo baxdo. taasi ayaa noqotay qorshaha. Alex iyo Jose waxay si xawaare leh ugu dhaqaaqeen munaarada usbank. bartii jidka, Major Tanner ayaa soo wacay. waxay haystaan hal eber daqiiqo. intaas kadib, ciidamadu waxay rasaas ku furi doonaan caarada iyo munaarada. markii wicitaanku dhammaaday, qayb burbur ah oo caaradu soo tuurtay ayaa ku dhacday baabuurkooda. Alex miyir beelay. markuu miyirsaday, waqtigii wuxuu ku sigtay inuu dhammaado. isaga iyo Jose waxay qaateen qalabkoodii waxayna wiishka ugu kaceen dusha sare. waxaa hadhay 3 daqiiqo oo keliya ka hor weerarka militariga. si uun bay si degdeg ah ku heleen Charlie iyo tiro yar oo dad kale oo badbaaday. mid mid ayay u soo saareen, laakiin ukumihii mar hore ayay dilaaceen. boqolaal caarooyin yaryar ah ayaa ku faafay jeel kasta. qof walba wuxuu galay wiishka waqtigii saxda ahaa. dibadda, ciidamada militarigu waxay caaradii weynayd kasoo tuureen munaarada, laakiin ma dhiman. Alex ayaa dib u haray si uu waqti u iibsado. Jose wuxuu u keenay gantaal gacmeed. labadooduba way beegsadeen. ilbiriqsigii ugu dambeeyey, Alex wuxuu gantaalka si toos ah ugu dhuftay spinneradka caarada. caaradii way qaraxday, waxaana isla goobta loogu kala gooyey qaybo. Alex iyo Jose waxay isla markiiba noqdeen geesiyaal, laakiin riyadii xumayd weli ma dhammaan. Major Tanner ayaa mar kale la kulmay Alex, wuxuuna u sheegay inuu jiro dhibaato cusub. baranbaro weyn ayaa hadda soo muuqatay.